madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay wiil uu dhalay Allah u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad oo dhawaan ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay caruurta uu dhalay Cawil Daahir Salaad isagoo ku tilmaamay inuu ahaa nin wadani ah isla markaasina loo baahan yahay in dhammaan kafaalad qaado caruurtiisii. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay kadib markii uu qaabilay bilad Cawil Daahir Salaad oo ah wiilka uu dhalay Cawil Daahir ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka sidoo kale la ururiyo. waxa aan maanta soo booqday qaab kamid ah caruurta uu ka geeriyooday walaalkeen Cawil Daahir Salaad oo ahaa nin wadani ah oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel hal abuurna leh dawladda Soomaaliyana ay kaalin muhiim ah ugu jiray ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya. waxaana uu inta ku sii daray madaxweynaha Soomaaliya dadka waxtarka u leh bulshada sida Cawil oo kale waxa ay naga mudan yihiin in laga in la maamuso aragtidooda wanaagsan ee ay ahayd in ay dalka wax ka bedelaan. waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynuhu uu cambaaraynayo falka argagixisada ay ku dileen wariye Cawil Daahir Salaad isla markaasina uu ku tilmaamayo mid arxan darro ah. bile Cawil Daahir Salaad ayaa ahaa curadka uu dhalay Allah u naxariistay Cawil Daahir Salaad oo ahaa wariye si weyn loo yaqaan isla markaasina ay dileen kooxaha Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen magaalada Muqdisho.